kulanti wanaagsan khiyaartan dhagaysanaysa ay ku soo dhawaada qayb kale oo ka mida barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay dastuurka dalka Soomaaliya. waa qaybtii toddobaad ee barnaamijka waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah Ayaanle Xuseen Cabdi. xukun wadaagga iyo federaaleynta qodobka saddexaad kow mabaadi'da asaasiga ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu ku dhisan yahay mabaadi'da asaasiga ah ee awood qaybsiga nidaamka federaalka. qodobka 45aad kheyraadka dabiiciga ah wax qaybsiga kheyraadka dabiiciga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa ka wada xaajoon doona dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladaha xubinta ka noqon doona dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo loo marayo qaab dastuuri ah. barnaamijkan waxaa diyaariyey Aamin Media Limited. haddaba qaybtan dooda ee barnaamijka oo aan ku faaqidi doono qodobkan ah xukun wadaagga iyo federaaleynta Soomaaliya waxaa igala qaybgalaya Dr. Axmed Faarax Ducaale oo inoo sheegay inuu yahay madaxweynaha maamul goboleed la yiraahdo Jubbaland kaasi oo aan weli ka mid ahayn maamulada ay dawladda dhexe ee Soomaaliya aqoonsan tahay, iyo sidoo kale injineer Maxamed Xasan Xaaji oo ka mid ah saraakiisha hay'adda Somali Sea Water Watchdog. waxaan ku bilaabayaa injineer Maxamed Xasan Xaaji oo aan ugu horeyn weydiinayo sida uu arko qodobkan ka hadlaya xukun wadaagga iyo federaaleynta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. guud ahaan marka aad akhrido qodobada federaalka muujinaya federaalnimada Jamhuuriyadda Soomaaliyeed runtii wax badan oo aad diido ama aad ka naxdo ama aad ka biyadiido runtii kuma jiraan. waan wada akhriyay dhammaantood malaha ku arki maysid uun xoogaa waxaad moodaa in dadkii Soomaaliyeed weli ayaan u bislaanin dhinacnaba. waxaynu hore ugu soo dhaqannay federaalku maaha, waa waxaynu ku cusub. marka waxaa meesha ka maqan fahankii dadku inay fahmaan. xoogaa waad ogtihiin oo burbur baa inagu dhacay, ummaddeennina sas iyo jaahwareer bay qaadeen. waxaa la ilaaway in sharcigu uu ka wan yahay qofka oo uusan qofku u baahnayn in sharci waxaan ahayn uu badbaadiyo ama uu ilaaliyo oo ku nabadgalo. waxyaabihiina soo maray baa runtiina dadka baray. sidaa daraaddeed dadkii waxayan ku kalsoonayn kelmadda federaalkaaba marka horeba laga sasayaa oo la odhanayaa federaal haddaan noqdo sian gobol kale aado ama gobol kale dego ama gobol kale tago yaa i badbaadinaya yaa ii away ah haddaan meeshii ama qabiilkayga joogin ama ehelkaygii joogin. taas baa xoogaa mushkilad ah oo u baahan ummaddii in la dhaadhiciyo qof walba uu sharcigu ka sarreeyo meel walbuna dalka kaga noolaado in nidaamka iyo sharcigu ilaalinayo oo daafacayo oo naftiisa iyo xuquuqdiisaba uu ilaalinayo. marka wax dhibaato ah runtii kuma arag. Axmed Faarax Ducaale, arrimahan federaalka ah markaad eegtay ku qoran qabi qoraalka maxaad ku fasiri lahayd? bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. walaale sidii walaalkay Maxamed Xasan Xaajiba uu yidhi, haddii qofku intuu akhriyo amase uu fahmo waxa federaal uu yahay uu markaa ka baaraandego oo la biyadego, wax mashaakil ahaa ku jira federaalismka lama odhan karo. dastuurkan hadda federaaliga ana hal dhibaato unbaa aniga iga muuqata anoo kabaya walaalkay Maxamed. waxaa weeye bulshaweynta Soomaaliyeed ma fahmin, wakhtina uma aanay helin ay ku fahamto federaalismka iyo dastuurkan axdigan cusub waxa uu yahay. qofkuna wax aanu akhriyinuuna fahmin haddii la yidhaaho saxiix oo qaado dhibaato ayay dhalin kartaa. federaalismku mashaakil ma lahan, dawlado badan oo waaweyn oo adduunka ayaa ku dhaqma. waa wax san oo wanaagsan, balse hal arrin baa jirta. waagii ugu horraysay ee la soo jeediyey taladan federaalismka ayaan dad badan ka doodnay oo waxaad maqli dadku inayba u haystaan ama dad badani u haysto federaalismka macnihiisu inuu yahay Soomaaliya in la kala googooyo oo lagu sameeyo ma garanaysaa jamhuuriyado yaryar oo wada kala madax bannaan oo markaa tayadii iyo tabartii Soomaaliyeed ay baaba'do. intaa maahee dhibaato kale igama muuqato. waayahay marka habkan federaalka ah federaallo badan baa jiro adduunyada ka jira oo kala nooc ah runtii si u shaqeeyaan. qaabkan noo qoran waa noocee injineer Maxamed?
runtii qaabka inoo qorin markaan ka baaraandego waxaan isleeyahay waa qaabka ugu wanaagsan waxa weeye waa qaab loogu talagalay in dowladda federaalka ay ka koobnaato dowlado yaryar oo isu tegey oo ka samaysan gobollada dowladda federaalkuna ay kor guud uun ka xukunto waxyaabaha keliya ay u khaasa dowladda federaalkii ay u gaar noqonayso ay noqonayso afar arrimood I think inay afar arrimood yihiin arrinta ugu horreysa waxa weeye ciidamada iyo sugidda maaragtay nabadgelyada xuduudaha waddanka arrimaha dibadda lacagta maamulka lacagta baasaboorada iyo immigrationka inay yihiin baan malaya qodobka afraad inta kale ay dowladaha gobolka u madax bannaanaadaan in ay haddii albaydankooda leeyahay wixii hawlahooda iyo danahooda iyo cashuurahooda ay qaataan horumarkooda ay iyagu ka tashadaan dowladda federaalkii weliba wuxuu dhigayaa sharcigu dastuurka uu dhigayaa in waxyaabo badan oo ka mid ah siiba markay heshiisyada caalamiga oo kala gelayso haddii gobol gaara khuseeyo oo kaleeto in ay dowladda maamulka gobolka ka jirta la tixgeliyo oo lala tashado mid aad iyo aad u wanaagsan marka anigu waxaan isleeyahay aad iyo aad baa loo dadaalay waana qaab sharciyeedu aad iyo aad u nidaamsan oo qurux badan waa sax marka la aqriyo waxa weeye mabaadi'da asaasiga ah ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay ku dhisan tahay mabaadi'da asaasiga ah ee awood qaybsiga nidaamka federaalka marka meeshan awood qaybsi marka la leeyahay waa noocee meel imisa awoodada la qaybsanaya awoodda la qaybsanaya waxaa weeye horta inuu dalku leeyahay dowlad guud ee central ah oo dowlad goboleeda oo dhammi ay hoos yimaadaan marka laga hadlahayo siyaasadda adduunka iyo waxyaabaha internationalka ah awoodda la qaybsanaya waxaa weeye haddaba waxaa ka mid a awoodaha la qaybsanhayo waxyaabaha la yidhaha natural resourceska inuu yahay wax qaranka oo dhan ka dhexeeya ee aanu gobolgoonni u lahayn difaaca dalka in laga wada tashado in gobolladu ay ka qayb qaataan laakiin ay go'aankeeda leedahay dowladda dhexe ee federaalka ah arrintan federaalku infact ma ahan mid cusub bishii abril ayaa ra'yigii ugu horreeyey laga soo jeediyey rag badan innagoo ahoo joogna waan ka mid baan ahaa raggii arrintaas ka dooday bishii abril federaalku marka waa hab wanaagsan oo sida uu walaalka yidhi waxaan loo soo jeediyey waagaas iyada ah oo keenay ra'yigan dalka waa kii burburay dagaal sokeeye waa tuu dhacay waa tii mashaakilku ay talada ka bateen waa tii dadkii heshiisiintoodii iyo dib u soo celintii qarannimadii soomaaliyeed ee ciriiriga gashay markaasaa fikirku wuxuu ka dhashay warbal haddii ay suurto gasho maantay in la sameeyo hab cusub oo la yidhaaho gobol walba ama intii gobol ee tashan kartae israaci kartaa ha israaceenoo iyagu gudahooda ha ka tashadeen hubka ha iska dhigeen oo tartanka hadda loogu jiro in la isqabsado in lagu bedelo tartan ah horumar iyo dib u dhisid taasaa horta ra'yigu ka dhashay sidaa daraaddeed awoodda la qaybsanhayaa waa awoodda qaran ee qarannimo taasay aniga saasaan u arkaa anigu waayahay isla qodobka 45aad khayraadka dabiiciga kan ka hadlaya kow waxa uu leeyahay wax qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaa ka wada xaajoon doona dowladda federaalka iyo dowladda xubinta ka noqon doonta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo loo marayo qaab dastuuri ah qodobkaas sidoo fahantay sidoo noo fahamsiin lahayd injineer Maxamed Xaaji qodobkaas markii horetana waxa carabka ku dhiftay walaalkay Axmed Faarax Ducaale ku dhiftay waxa weeye midalan hadii khayraad dabiici oo kale to laga wada hadlayo waxa weeye sida uu dhigay waxa weeye wuxuu khuseeyaa guud ahaan federaalkii Soomaaliyeed buu khuseeyaa khayraadka dabiiciga gaar ahaanna wuxuu khuseeyaa gobolkii khayraadka dabiiciga laga helay ama lagu sheegay marka waxa weeye waxa wada ka wada tashanaya gobolkii maamulkii dawladnimadii gobolkii ka jirtay iyo dawladda federaalka ah ka wada hadlaya ka tashanaya siyaabaha looga tashanaya waxay ku xiran tahay horta nooca khayraadka la sheegaya laga helay waxa kale oo laga tashanaya sida marka hore tana loo wada maalgelin lahaa oo maalgelintii hadii alba iidankeeda looga qayb gali lahaa iyo hadii dawladda federaalka wada maalgelinta wada qaadanayso iyo hadii dad shisheeye wada qaadanayo iyo hadii dawladda gobolka ay iyadu
horumarka samaynayso iyo marka dambe wixii ka soo baxa sidii loo qaybin lahaa inteebaa dowladda federaalka helaysaa inteebaa dowladda gobolku helaysaa inteebaa haddii cid saddexaad oo maalgashatay maalgashiga bixisay maalgashigeedii ka helaysaa waxyaabaha weeye waxyaabaha looga baahan yahay waxaan u arkaa qodob xalaal oo aad iyo aad u fiican waxa muuqda waxa weeye gobol kasta kolleyba marka la yidhahdo dowlad federaal wuxuu yeelanayaa baarlamaan oo runtii gobolkaas iyo deegaankaas awood badan ku leh iyo nidaamka meesha ka jira kaba soo qaad haddii baarlamaankaasi awooddiisii uusan tixgelin qodobkii dastuuriga ahaa ee uu yidhaahdo khayraadka aniga aan leeyahay gobol haddaan siinayo waan kula xisaabtamayaa ama waa amaah ama hadday noqoto maba siinayaba maxaa laga yeelayaa ta waxaa sida ay ila tahay mar walbaba noqonaysa lagama maarmaan dowlad goboleed isagu diidi kara amase jebin kara dastuurka qaran ee ka dhaxeeya dowlad goboleedada oo dhan iyo dowladda federaalka ah wax dabcan socon karaya ma aha haddiise uun ayba dhacdo oo baarlamaan dowlad goboleed uu isku dayo amase go'aansado inuu ka hor yimaado dastuurka qaran markaa haddee dastuurkii qaran ayaanbaa shaqaynayo oo markaas xal in la doono weeye laakiin dowlad goboleed kasta waxaa khasab ku noqonaysa dastuurka qaranka inuu tixgeliyo oo dhowro waxa uu dhigayo kuna dhaqanto waayahay injineer qodobkaas haddaan qodobka in yar ku darsado ka idhaahdo waxa weeye masalan ka soo qaado gobolba betrool baa laga helay wuxuu yidhi anigu betroolkayga cid allaaliya cidaan wax ka siinayo oon ka bixinayaa ma jirto horta ma garanayo de in madaxdii gobolkaas oo dhan oo madaxweyne leh oo wasiirra leh oo leh maxay tahay baarlamaan leh u malayn maayo horta inay isku wada raaci karayaan dhammaantood inay intay dastuurka ka hor yimaadaan inay saa u bareeri karaan qodobka jira bal ka soo qaadba inay sameeyaan waxa weeye iyagu waxay la cararayaan oo ay diidan yihiin waxa weeye waa il yaroo dhaqaalo oo kaba soo qaad betrool oo kaleeta ah laakiin de waxaad og tahay dowladda federaalka wax ka badan bay gobolka gacanta ugu haysaa haddaad dhaqaalaha keliya ka soo qaato wax kaloo ka fara badan bay gacanta ugu haysaa waxay gacanta ugu haysaa caawimadii caalamku ina siin jiro oo dhan dowladda federaalka maamulaysa waxaa yahay wixii khayraada iyo gobollada kale ka soo bixi jiray oo dhan maxay tahay ama haddii cashuur tahay dowladda federaalkay ku soo dhacaysa dowladda federaalka hadhow dowladahaasi siday u kala tabar badan yihiin iyo siday u kala dhaqaalaliin iyo siday u kala horumar liitaan u qaybinaysaan waa la ganaaxayaa gobolka waxaa la odhanaya okay shidaalkaaga iyo betroolkaaga iyo macdantaadu bal intay kuugu filaato bal aanu aragno difaacii dalka ayaa ku jira ku difaaci mayno horumar kale ku siin mayno siyaabo badan baa loo ganaaxayaa marka khasab bay ku noqonaysaa mar walba inuu gobolkaasi uu tixgeliyo dastuurka uusan dhayalsan waayahay laakiin waxyaabaha qoran waxaa ka mid ah gobolka sida dastuurku sheegayo hadda gobol lama dhihin waxaa leeyahay dowlad goboleed magaca dowladna markuu yimaado hadda gobolladan maraykanka oo kale lama yidhaahdo dowladda gobolkaas lama dhaho laakiin ma muuqataa marka baawar kad weyn heerkii maamulada federaalka ah inuu meesha ka muuqdo dhibaatooyinka jira oo dhan baa waxaa ka mid ah hadda oo dastuurkii oo ay suurtoodo inuusan wax cillada lahayn cilladaha keenaya degdegta dardargelinta lagu dhammaynayo maxaa yeelay sidaan horeba u tibaaxnay bulshadu haddii aanay fahmin waxa uu dastuurkan yahay iyo sharcigan waxa uu yahay eray bixinta xataa qoran ee dastuurka ku qoran laftooda oo u baahan in dib loo eego waxyaabo badan baa laga sixi karaa dastuurka habka uu qoran yahay lafteeda eray bixinno badan oo waxaa ku jira oon arkay u baahan bal in dib inta loo eego la yaro saxo oo ama la qurxiyo ama laga bedelo habka loogu yeero sidaa daraaddeed dowlad goboleedka waa la bedeli karaa oo magacyo kalaa loo bixin karaa laakiin ujeeddada waanu wada fahmaynaa ujeeddada in la fahmo unbaa muhiima laakiin gobol marka la yidhaahdo marka dowlad goboleed la yidhahdo waxaad moodaa inay kala awood badan yihiin soo maaha waxaan weydiinaya injineer dee magacaa dee micno u samaynaya magacaa dee samaynaysaa oo dhadhansanaysaa waxa weeye haddii la yidhaahdo state iyo haddii la yidhaahdo state iyo gobol iyo haddii la yidhaahdo dawlad iyo waxa micno xikmadda muhiimadda waxa weeye in ulajeedada la fahmo weeye taasaa xikmadda muhiimadda meesha ku jirta ay tahay maxay ahayto haddii labaydankeeda leeyahay maraykankana aad example tusaalaha u soo qaadatayna waxa weeye
way jiraan waxa la yidhaahdaa waa gobollo waa states baa la yidhaahdaa laakiin maca daalik saasay tahayna gobarnarka stateka xukuma powerkiisuu leeyahay marmarka qaarkoodna waa iska hor yimaandaa dowladda federaalka waa isku dhacaan siyaabo badan bay isku dhacaan dhinaca maamulka iskaga dhacaan dhinaca khayraadka isoo dhacaan waxaana qadhaa dhowr gobol oo haddeerto isku haysta webi biyaha isku haysto maraykanka ah oo dhowr jeer dowladda federaalka ay soo dhex gashay oo barasaabadii isu keentay oo wada hadal siisay marka still waa awood meesha taala laakiin haddaad ku magacoodo gobol iyo haddaad ku magacdo dowlad ujeeddadun baa dee muhiima waayahay waxyaabaha qoran marka oo haddaan u galno gudaha waxaa ka mid ah qaabdhismeedka dowladda federaalka waxa uu ka kooban yahay laba heer dowladeed heerka dowladda federaalka ah iyo heerka dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah oo ay hoos yimaadaan dowladda deegaanka marka waa laba gobol iyo dowlad dhexe iyo heer gobol wey marka arrintan marka si fiican looga duulo soomaalida baahi ma u qabaan inay maamul noocan oo kale ah dhistaan ilaa goormays ku qaadan kartaa xitaa in laga raarido inay u baahan yihiin hab federaalah bismillahi raxmaan raxiim wax waliba waxay ku wanaagsan yihiin mar walba in dhanka fiican wanaagga laga eego ee aan waxyaalaha negativitiga la soo hormarinin laba weeyaan dowladda sare oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka waa unintii wax siyaaduhu meesha kuma jiraan wax walibana dabcan wakhti bay u baahan yihiin inta dadka laga dhaadhicinaya ummadda bulshaweynta soomaaliyeed ay ka fahmi karto haddee halka anugu kama sheegi karno laakiin waa wax u baahan in laga baaraandego in la dardargeliyo in laga hadlo in laga baaraandego wax u baahan weeye bulshadu say wax ku fahamtahay wax fudud ma aha waxyaanahana waa arrimo iyo sistem iyo noocyo nagu cusub weeye sidaa daraaddeed la yaab ma leh hadday dad badani ka istaagaan laakiin waxaan u baahan tahay oo keliya in dadka si tartiibahoo degan looga dhaadhiciyo ee aan la isku dayan in la boobsiiska waxa la yidhaaho oo kaleeto dadku isku si wax uma garto isku mar wax ma garto marka waa wax u baahan ma garanaysaa ka baaraandegid dheeraada waaya isla su-aashaasaan weydiinaya injineerka waxaa weeye weliba aniga aragtideeda weliba dowlad saddexaad baa ka sii maqanoo waxaa ka sii maqan dowladdii degmada ka sii maqan sababtoo degmo kastaba waa inay meeyar yeelataa duq magaalo yeelataa duqa magaaladuna waa inuu golo yeeshaa dabeedna uu maamulkiisii hoose sii yeeshaa marka idonno ma garanayo runtii waxaa arrinta dastuurka loogu qori waayey in dowlado hoose ay jiraan bal calaa kulli xaal waxaa weeye awalba waynu lahayn sistamkan si ku dhow baynu lahayn dowlad dhexana waynu lahayn oo muqdisho inoo fadhido xarunta muqdisho fadhida gobolladana waxaa joogi jiray niman barasaaba la yidhaahdo oo ilaa xad awood lahaa awoodooda wax kastaba ha ku sinnaatee marka kuwii uunbaa intii halkii ma ayn lahaan jirin waxa keliya ayn lahaan jirin waxaa weeye wasiiro ka hooseeya iyo golayaal baarlamaan bayan barasaabadaasi lahaan jirin marka kuwii uunbaa waxaa loo yeelay golo wasiiro ka hooseeya oo danta gobolka ku kooban iyo golo baarlamaan oo danta gobolka ku kooban uunbaa loo sameeyey federaalkuba waa intaa oo keliya weeye marka haddii intaa dadku isla fahmaan oo isla qaataan aniga waxay la tahay mana dhib badnaanayso in dadka laga dhaadhiciyo loo sheego haddii si nidaama loo sameeyana xitaa dadkuba ma dareemi karaanba in isbedel yimi aan ka badnayn uun in maxay ahayto nidaamkii uu sii furfurmay oo horumarkii iyo maaragtay dhaqaalihii iyo gobolladii hoose iyo degmooyinkii hoose usan gaari jirin uu gaaray waa sax laakiin waxaad mooddaa sida qodobka ay u dhigeen maadaama a iyo b ay qoreen inay ka wadaan dowladda federaalka ah oo ay hoos yimaadaan dowladaha deegaankooda oo qaabkaas inay ka wadaan laga yaaba gobollada marka laga hadlo waxaa ka mida qaabkay isugu biirayaan gobol keligii goonu istaagi kara oo calan intuu babayo dhihi kara waxaan ahay dowlad goboleed ma jirto sida qoran waa inay ugu yaraan laba gobol isku biiraan arrintaa maadaama adiga hadda gobol aad madaxweyne ka tahay jubbaland aad la baxday maamul ahaan sidee idiin saamaynaysaa bay kula tahay gobollada iyo sida laysugu xerin lahaa dhowr gobol inay isku biiraan haddii aan tala ku lahaan lahaa ama ka tala bixin lahaa qoraalkan habka uu yahay kolley anugu uma dhigeen maxaa yeelay gobollo waaweynoo isku filan baa jiro oo haddii xataa la qaybiyo ilaa 3-4 gobol noqon kara laf ahaantooda soomaaliya markii la eego hase ahaatee haddii uun hadda sidaan lagu dhawaaqay dhibaatadeeda way lahaan kartaa oo maxaa yeelay gobollo waxaa jira iyagu rabi lahaa ama rabitaan leh si ay iyagu goonni ugu istaagaan oo ay ula sinaadaan kuwa kaleeto hase ahaatee anugu hadda tan aan haddaan u soo noqda aniga tayda jubbaland waxay ka kooban tahay 3 gobol
waxaa weeye gobolka gedo jubbada dhexe iyo jubbada hoose sidaa daraaddeed ra'yigaygu haba khilaafsanaado habka loo cayimay inaan gobol keligii is istaagi karin hase ahaatee waxba dhibaataa hadda annaga ase dowlad goboleed ahaan dhibaato naguma hayo baaragraafkaas waayahay laakiin ma la isweydiin karaa haddaan ku darsado gobollada maadaama maamul goboleedyo la ogolaaday gobolka taitalka la siinaya ninka ma governar buu noqonaya mase madaxweyne kolleyba meesha kuma cadda xeer hoosadii noqon doontaa laakiin sidee ku habboon soomaaliya inay noqoto horta taas waxay dabcan waxaan u malaya ku xidhnaan doontaa uun xeer hoosaad baarlamaanka federaalka uu soo saari doono magacbixinta iyo waxna kuma jabna haddii la yidhaahdo gudoomiyaha gobolka jubbaland oo kaleeto sida master axmedka inala fadhiyo oo kaleeto ama la yidhaahdo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo kaleeto waxa weeye uun eray bixin ah waa wax eray bixina waxna kuma jabnaa marba tii la qaato hadhow dadku way isaga baranayaan waxaan garanayaa berigii gobonimada la qaatay kelmadda madaxweyne af soomaaliga kuma jirin waxa inoogu horreysay kelmadda madaxweyne markii gobonimada la qaatay markaasaa dadku waxay odhan jireen xamar buuna fadhiyey ninka madaxweynaha la leeyahay markaasaa waxa la odhan jiray war ninku miyuu dadka ka madaxweyn yahay haddana markaad madaxweyne maqasho automatic markiiba waad iska fahmaysaa inuu yahay qofka meesha ugu sarreeya maaha qofka ugu madaxweyn oo qofka ugu sarreeya weeye marka waa loo baranayaa mar haddii la yidhaahdo gudoomiye gobol ama la yidhaahdo gudoomiye dowlad goboleedka waa wax loo baran doono waxaan rabay inaan ku daro infact way ku jiraan baaragaraafka amase qodobka u ahaa ma xusuusto laakiin waa ku jira gobolada dowlad goboleedada madaxweynahooda inuu dowlad goboleed kastaba leeyahay madaxweyne waa ku jirtaa laakiin qodobku ahaa ma xusuusto iminka waayahay marka haddaan hore usii soconno qodobkeennan aan aad uga hadlayno ee ku saabsan dowlad goboleedyada iyo habka federaalka ah dadka soomaalida waxaad ogtihiin in ay yihiin dad aanan kala fogayn oo kulligood wiil iyo abtiya maxaa baahiya oo is leedahay federaalkan in la qaato way ku wanaagsan tahay oo soomaalida xal bay u tahay injineerkan uu ku bilaabaya waa su-aal aad iyo aad wanaagsan waxaan aniga aaminsanahay in laba sababood loo qaatay horta waa midda horeete ee dadkii soomaaliyeed oo markii civil war ku dhacay dagaalkii sokeeye uu dhacay si kaleetoo la isugu keeno oo loo heshiisiiyo la waayey in qof walba lagu yidhaahdo uun war haddii gobolkaagii dawlad lagaaga sameeyo ma ku qancaysaa taasi waxaan isle waa qodobka labaad waxa weye aan isleeyahay aad iyo aad buu ugu sii wanaagsan yahay berigii horta waxaad moodi jirtaa in uun horumarka iyo waxqabadka iyo inta badan ay ku koobnaan jiray meelaha dawladda dhexe ay joogto sida muqdisho oo kaleeto hadda waxay u egtahay in gobolladu hoos ugu daadegayaan horumarka iyo maaragtay dhaqaalaha iyo horumarka iyo waxqabadka iyo waxbarashada tacliinta caafimaadka wadooyinka biyaha waxaasoo dhan waxaad moodaa inay gobolladu hoos ugu daadegayaan waa waxyaabaha laga faa'iidaya baan isleeyahay ta kale gobollada waxaan isleeyahay way tartami doonaan oo tartan baa ka dhaxayn doona oo gobol walba hadeerba waxaad moodaa in la kala horeeyo oo maaragtay maamulada la samaystay qaarkood aad moodaa inay micno u sameeyeen waa kuwa aan samaysan aad moodo in dibidhax ku jiro oo dibidhax ku yimi marka sidaasna daraaddeedna dee tartankaasina faa'iido badan buu yeelanayaa oo ummaddu aad bay uga faa'iidaysan doontaa baan isleeyahay waxaa laga yaabaa bisaylka soomaalidu inaysan gaarin in nin walba uu meeshuu doono laga yaaba in laga soo doorto hadda sidaan ognahay gobollada iyo qabaa'ilka soomaalidu waa hab qabiilay ku abaabulan yihiin weli deegaanadana waa la wada degan yaha haba lagu kala badnaadee laakiin suuragal ma noqonaysaa haddaan gobol aabbahay ka yimid anoo ku dhashay gobol kale in layga doorto gobolkii aan ku dhashay ama aan dib ugu laabto gobolkii aabbahay ka yimid oo maaragta halkaas aan doorasho ka doonto may noqonaysaa mase waxay noqonaysaa meeshaan ku dhashay inaan joogo ummadda soomaalidu dad walaala weeye deegaanana adduunyadao dhan baa kala leh soomaalida keliya ma ahan tan qabiilkana qabiilku ceebna ma aha dembina ma aha ilaahay baa naga abuuray qabaa'il waxaanan anigu kolley rumaysnahay maantay in ay ummadda soomaalidu si aada uga bislaanayso habkii dhibaatada lahaa ee qabiilka waxaad moodaa dhibaato kasta oo dhacday maanta soomaalidu in ay aad iyo aad isbeddel uu uga socdo dhexdeeda tan doorashadana haddeed in qofku gobolka uu ku dhashay laga doorto ayaa wanaagsan mar walba omu ka galo tartanka doorashada
midda hadda yani meeshii aan ku dhashay ma ahan meel aan ka soo jeeda ama aabbahay ka soo jeeday tan ah taas waxaan anigu koley shakhsiyan rajaynayaa inay tahay mid iska dhammaanaysa aakhirka oo dadka soomaalida ahu waa wada abti iyo ina adeer miiran weeye marka meeshii uu qofku markaa ku dhasho ama uu ku koro deegaan u ah halkaa ayaan aad iyo aad u rajaynayaa kolley in ay ahaan doonto tan wanaagsan soomaaliduna ay fahamsan tahay oo ay ka soo bixi doonto saasaan rumaysnahay anugu isla su-aashaas injineerkan weydiinaya anigu horta bilxaqiiqa waxaan goobjoog u soo ahaa iyadoo oo doorashooyinkii berigii baarlamaanka soomaaliyeed la dooran jiray xubno baarlamaana laga soo doortay gobollo iska daa ayaan wax shuqul iyo shaqo ah ku lahayn aan la odhan karin ku dhalasho iska daaya wax shuqul iyo shaqo aan ku lahayn xitaa laga yaabo dadka qabiilkooda ku nool haddayba jiraan ay yihiin wax yar oo dawlad u shaqeeya aan ahayn wax dad deegaan ku yimi baa laga soo dooran jiray runtiina waxay ila tahay in ay haddii federaalka la qaato inaan loo baahnaan doonin markaas muddo yar haba inugu qaadatee ay waxaas iska baabi'i doonaan oo ay dhici doonto qofku sida uu marba bulshada ugu dhex jiro looga yaqaano gobolka wuxuu ka qabtay misal haddaan gobol tago oo kale bari oo kale aan tago oo kaleeto oo bulshada bari anigu iska dhaadhiciyo oo isbaro oo waxqabatin muujiyo oo ninkii u dhashay gobolka kaga magac iyo sumcad roonaado hadhowna aan iska sharaxo waxaa qasab noqonaysa dee dadku anunbay bay yaqaaniin ninkii u dhashay ma yaqaanin qabiilkuna waa iska baaba'aya marka xoogaa un cuqudad baa jirta saan markii hore hadalkayga ku bilaabay ummaddii soomaaliyeed sas iyo maaragtay jahawareer baa galay 20kii sano dagaalkeenu oo loo haysto in xuduudaha loo kala samaynayo qofku uusan gobolku doono degi karaynin oo qofku meeshuu doono ka ganacsan karaynin oo qofku meeshuu doono iska sharixi karaynin waxaasna waxaa inoogu wacan saska iyo jahawareerka maaragtay ina qabsaday haddii waxaas loo dulqaato muddo yar loo sabro waxaana hubaa in laga gudbi doono oo maaragtay iska dhammaan doonaan walaalkii waxaan rabaa inaan ku sii kabo analysiska saxa oo u sameeyey muqdishoaan hadda ka imid habeen hore muqdisho hotel baan waxaan wada deganin 3 nin oo ganacsato ah oo reer waqooyi ah oo ka yimid Hargeysa waxay u joogeen muqdisho in ay maaragtay investment ku sameeyaan maalgelin inay ku sameeyaan muqdisho iyo gobolada south-ka oo dhan inay ku sameeyaan kumana aanay dhalanin mana aqoonin hadda ka hor balse waxay ahaayeen niman Soomaaliya oo yimid dal Soomaaliyeed sidaa daraadeed waa sax oo ma garanaysaa doorashadu kuma xirna dhalashada in fact waa magaalooyin badan baa laga soo geli jiray laga soo dooran jiray ragan xataa weligood tegin marka waqtigana gabagabo nagu yahay ugu dambeyntii habkan federaalka ah markaad akhriseen aadna u eegteen waxaad aaminsantihiin soo maaha maanta Soomaaliya xal buu yahay xal buu yahay baan isleeyahay anigu kulli qof ahaan xal wanaagsan waliba u yahay cilada kaliya jirta waxa weeye dadkeenii maxay ahayto sida aan dareensanahay boqolkiiba 46 miyaan idhaahdaa baan ku qiyaasay inta aan ku garaadsanin dawladnimo aan ku garaadsanin oo aan aqoonba nidaam dawladeed wuxuu yahay boqolkiiba 33 waxaan ku qiyaasay dadkii barkii horeba baadiyaha iska joogi jiray oo reer miyiga aynu oran jirnay oo iyaguna dawladnimo awalba lug iyo laantoona kula haddana qaarka far badan oo ka badan ay magaalooyinka soo galeen tirada haddaad isku darto waxay noqonaysaa 79 adigu boqolkiiba 80 dheh boqolkiiba 20 kale soo haray 10 iyo ka badan oo ka mid ah dalka way ka baxeen way ka maqan yihiin waxa kaliya maanta dalka jooga dawladnimo yaqaana ama arkay ama u soo joogay waa wax dad boqolkiiba 10 ka yar waliba intaasina haddaan kuu sheego runtii intaasina waa intooda ugu badan waa intii soo joogtay xilligii 20kii sano iyadana ka horeysay 20ka jahawareerka iyaguna kacaanka joogay oo aan aqoon doorasho iyo dawladnimo iyo dimuqraadiyad iyo midna aan aqoonin marka waxaad moodaa inaynu imika ummadeenu boqolkiiba 90 iyo ka badan wax hadda la barayo inay tahay marka anigu waxaan isleeyahay haddii in yaro samir iyo dulqaad la sameeyo dadkana maaragtay la wacyigeliyo la war iyo wacyigeliyo in jahwareerkan laga baxayo dadkuna ay maaragtay u hoggaansanayaan nidaamka iyo shuruucda federaalkana uu noqon doono wax lagu faa'iido oo lagu horumaro waa ka baxay sax weeye walaalkay sida uu yiri federaalku waxaan anigu kolley rajaynayaa aanan aaminsanahay in uu noqon karo hab maamul oo keeni kara dadku inay ku tartamaan horumar waxaan aaminsanahay Soomaaliya inuu faa'iido ballaaran u keenayo dalkuna horumar ku gaarayo saasaan aaminsanahay anigu
waxaa intaasi noogu dhammaaday dhegaystayaal barnaamijkan oo aan uga hadlaynay xukun wadaagga iyo federaaleynta soomaaliya. waxaa igala qayb galay doctor axmed faarax ducaale iyo injineer maxamed xasan xaaji. intaynu dib isku maqli doonno waa ayaanla xuseen cabdi oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo. barnaamijkan waxaa soo saaray aamin media limited.